diro iyo maartay culuw iyo karaamo ku helaya aakhirana qofka quraanka xifdiyay umada kale waxa way Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka fidlan yahay hatta waxa la sheegay qofka xaafid quraanka markuu qabriga galo ilaa jirkiisa aysan ciidu cunin way muhiimada hadalkeeguna waxa insha Allah ku soo koobaya iyadoo waqti badan jirin inaan maartay waalidiintaas quruxda badan ee waalidkaas ilmaha ku soo dadaalay ee maanta ilmaha halkaas uu keenay inay abaal u helayaan taaj in maartay ilmahoodu ay madaxa u saari doonaan maanta yawmal qiyaame adduunkana ilmaha markuu quraanka barto wuxuu noqonayaa ilmo dhowrsoon oo maartay adigana ku anfaca dadkan anfacana dalkan anfaca diintan anfaca marka waalidku waxaan leeyahay insha Allah intaan in ka badan baa kula dadaalaan ilmahooda inay quraanka baraan aad baad noo maasantihiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa martida sharafta leh iyo culimada iyo maartay xildhibaanada iyo maamulaha madrasada iyo dhammaan waxa way culimada dhinacayga taagan aad baan u maasantihiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. قال في الحديث الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى وأعظمهم قدرا وشأنا ورفعة هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أفضل الناس وأعلى الناس شأنا ومكانة وأفضلية عند الله سبحانه وتعالى هم أهل القرآن، لأنهم هم أهل التدبر وأهل الذكر وأهل التفكر وأهل إعمال العقل